Assalaamu calaykum. Soo dhawaada walaalaha ku xiran Birol Islamic Media. Waxa aan muuqaalkan jeclaysiin inaan idinkugu soo gudbiyo sidii aad ku rumeyn lahayd riyadaada. Inta aan muuqaalka u gudagalin, haddii aad ku cusub tahay kanaalka, ayna ku anfacaan muuqaalada aan soo gelino, subscribe saar si muuqaal walba aan soo gelino aad u daawato. Haddii aad horey u saartana subscribe, la wadaag asxaabtaada iyagana si ay ugu faa'iidaystaan. Dad badani waxay ku dadaalaan sidii ay u rumeyn lahaayeen riyadooda ama guusha ay doonayaan, laakiin kuwa aad u yar ayaa ah kuwa ku guuleysta inay rumeeyaan riyooyinka ay jecel yihiin. Marka su'aashu waxay tahay, sidee loo gaaraa riyadaada? Gaaritaanka riyadaada iyo yoolalka uu qofku doonayo ma ahan wax fudud. Qof kasta oo raba inuu gaaro riyooyinkiisa waa inuu la yimaadaa doonis. Doonistuna waxay ku xiran tahay inaad gaarto riyooyinkaaga. Ileen qofku hadduusan oran waxaan waan samaynayaa ama waxaan waan qaban karaa waxba ma uu samayn karo. Marka waa inaad doontaa inaad riyadaada rumayso. Waxaadna ogaataa haddii qofku awood u yeesho inuu naftiisa siiyo muuqaalka mustaqbalka ee uu maalin u noqon doono, wuxuu saameyn ku yeelan doonaa isbeddelka dhabta ah ee noloshiisa, wuuna heli doonaa natiijooyinka uu doonayo. Dadka intooda badan waxay ka cabsadaan inay guuldareystaan. Cabsida ka adkaaw. Maadaama dad badani cabsi ay ka qabaan guuldarada ku dhici karta inta lagu jiro safarka isbeddelka, waxaadna ogaataa inay guuldaradu tahay guushu barkeed. Waxaa laga yaabaa qofku inuu la kulmo caqabado badan oo saameeya horumarkiisa, sidaa darteedna ay u horseedo inuu cabsado. Ogow, haddii qofku ogaado in caqabadahaadi yihiin kuwa caadi ah, marka ma yeeli doono inay cabsida ka hor joogsadaan waxa uu doonayo inuu gaaro. Ku dadaal inaad naftaada daryeesho. Waa inaad ka shaqaysaa sidii aad ku horumarin lahayd naftaada, iyadoo la samaynayo liis, halkaas oo aad ku qorayso waxa aad awoodda u leedahay inaad samayso, iyo waxa aad daciifka ka tahay inaad samayso. Marka waxaad xoogga saaraysaa kuwa aad daciifka ka tahay inaad samayso, waxaadna ka shaqaysaa sidii aad ku horumarin lahayd.